السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتين كحرة جلالكين وحايدين لنا لايك سبسكرايب صار كومنت كصوبحي وحمان تبضنا مع الله برنامج كين ما انتو حقوق هاي توب 10 توب gabdhaha oo qurxoon sanadka 2022 ayaa halkan ku soo gudbin doonaa insha Allah ta'ala isla socod wanaagsan waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka channelkeena fadlan haddii aad ku cusubtahay channelka subscribe saar like saar share garay aad baad u mahadsantahay isla socod wanaagsan ay maxaan samaan maanta waxaan haynaa haduu ilaahay yiraahdo gabdhaha oo quruxda badan 2020 iyo 2021 ayaa waxaan rabnaa inaan hay maanta halkan ku soo gudbino soo bandhigna haduu ilaahay yiraahdo kadib markii tartan badan iyo codeyn badan aan sameeynay oo la wadaagnay bulshada Soomaaliyeed waxay soo saareen gabdhaha oo qurxoon 2021 waa top 10 waa 10 gabdhood oo qurxoon marka waxaan ka soo bilaabi doonaa numberka koowaad ilaa numberka tobnaad anagoo idinku qeexi doono hal insha Allah ta'ala isla socod wanaagsan والله بالله تالله برنامج كان horta codeyntan waqti badan aan gelinay dad badan oo soo bandhignay marka codeynta numberka koowaad hadda waxa la soconaysaan codeynta numberka koowaad yaa galay Munukey wow gabadha oo qurxoon sanadka 2020 2021 waxay ku guuleystay kaalinta koowaad waxa ku guuleysatay gabadha la yiraahdo Munukey ha صح منكي ku guuleystay numberka koowaad ee quruxda gabdhaha Soomaaliyeed 2021 Munukey ayaa ku guuleystay numberka koowaad ee quruxda waxaan fiirin doonaa booska labaad saddexaad afraad shanaad lixaad ilaa iyo tobnaad ilaa 10ka anagoo u qeexi doono hal waxa labaad gashay annahayna boqorada qaaliga ah dimaashadeeda qaaliga ah adna heena waxay soo gashay numberka labaad ee quruxda gabdhaha Soomaaliyeed 2021 ee ugu shidan ma sha Allah way u qalantaa waxa deertan aan galeynaa gabadha saddexaad oo la dhaho Cayuun Qurux numberka saddexaad ee gabdhaha oo qurxoon sanadka 2021 waxaa booska saddexaad soo tiigsatay gabadha quruxda looga xaray Muqdisho ma dhihi karaa ha dabcan way tahay Ayuuni Qurux numberka saddexaad ay ku guuleystay Amiir Qurux ayaa waxay gashay numberka afraad Amiir Qurux ma sha Allah Amiir Qurux aad baan u salaamay walaashayda qaaliga kaalinta qiimeynta gabdhaha oo qurxoon ee sanadka 2021 waxaa ka soo gashay kaalinta afraad ama numberka afraad waana gabar aad iyo aad u qurxoon runtii aniga ahaan codeynteedu waxaa siin lahaa numberka koowaad Amiir Qurux numberka koowaad oo codeyn lahaa maadaama qofka laga siiyay aniga ahaan numberka koowaad siin lahaa laakiin hadda top 4 kay soo gashay ma sha Allah waa number aad iyo aad u fiican okay Atrisho Baadiyo numberka gashay shanaad dimaashadeeda qaaliga ah Atrisho Baadiyo familka aadka u qurxoon oo anigana taageeraha weyn u ahay farxadda ku nool Atrisho Baadiyo bul iyo saaxiibkay Nuuridiin xaaskiisa ma sha Allah ayaa waxay soo gashay booska shanaad sax Atrisho Baadiyo waa boqorad weyn u qalantaa dhabtii okay hadda idin soo socdo hadda geeyada waa numberkii lixaad ee geeyada madow صعب إيجا مدنتها جنيدا مدو وحي سو gashay numberka lixaad ee quruxda top 10 ka sanadka 2021 geeniyada madow waa boqoradeena aan ku faano iday dhaqankeena oo kor u qaaday dhabtii waa aaminsanahay gabadhaas wax badan wali wallahi geeniyada madow waxa waaye gabar shidan waaye hortaniyo wallahi numberka gashay geeniyada madow lixaad ani ahaan labadaas siin lahaa laakiin doorashada aniga iyo ma ahan dadka soo doorteen codeyntii booska iska imaade waxaan leenahay ma sha Allah sanadka dambe waxaan ku rajaynayaa inaad soo tiigsato booska koowaad Shaadiyo Sharaf toddobaad gabadha reer Muqdisho ee u shidan kaalinta toddobaad boqoradeena dhameed oo anaga ku xisaabtan
ما شاء الله ما دام أنا سوق الشيء إن توب 10 أدبن وآمن سنة هاي وحين سوق الشيء توب 10 خاصة نمبرك تدبات شادي الشرف دمشق دقائق وحين سوق الشيء نمبرك تدبات قروح ذا قيمينتا قبلها لابدكن إلى لباتن لابدكن لباتي كودا ويقلنتا كفي أنا يقلنتي برنامج عادي معهن وقت بدن قدينا سو دياري أو برشة لو بندقي سو عديين أساس نمبر أهم وقيحني سياس درت إذا حلقة كوكيني سومان نمبر كسديد يا نوغل نشور عرالة باب نمبر كسديدات وعسو قلي بقركا قروح دا بقرد قروح دا أيو يا واي بقرد قروح دا متقاني نجو عرالة وحيسو قشي نمبر كسديدات قروح دا لبتي وقبل آدي آد وقرحون وحين سوتي كستي نمبر كسديدات وحان أرجينا codeynta xigta inay soo tiigsan doonto kaalimo kuwan ka fiican sababtoo ah way u qalantaa waa gabar aadi aad u qurxoon ka fiican ay u qalantaa ma sha Allah keep going aan leeyahay number 9 yaano soo galay waxa soo galay Fortune Brima boqorada codka iyo quruxda dalka Soomaaliyeed waligeed waxay ku jiri jirtay gabadha numberka koowaad laakiin sanadkan ma aqaani sababta meesha loo geeyay numberka macna waa duqoodiga umaleha ma yaama duqoobin laakiin malaha codeynta marba nasiib way mugtahay nasiibkeeda keenay booska 9aad ay soo gashay Fortune Brima waa la ogyahay inay tahay gabar aad iyo aad u qurxoon oo inta badan Soomaalida ay aaminsantahay laakiin codeynta ma aqaani sababta ay soo gashay numberka 8aad laakiin saas ay tahay top 10 maadaama ay kamid tahay waxaan leenahay hampaliyo keep going sa wali waxa tahay hogaan queen of waxaa 10 gashay farxiyo fiska abwaanada iyo fanaanadeena qaaliga ah farxiyo fiska ayaa waxa soo tiigsatay numberka ugu dambeeya ee kala sareenta codeynta gabdhaha oo qurxoon sanadka 2020 farxiyo fiska dhabti waxay u qalantaa booskan ka wanaagsan laakiin maadaama ay soo tiigsatay top 10 wali waxay leedahay heybad iyo qurux oo rabbigayga ugu deeqay waxaan leeyahay ma sha Allah wali waxa kamid tahay top 10 beautifuls of Somalia gabdhaha oo qurxoon tobanka gabdhood ee ugu qurxoon halkan ku soo bandhinay neew adiga waxa leedahay marka gabdhahan maxaa ku qeexlay iyo gabdhahan horta ilaahay quruxdooda u saacidiyo sax waxa leeyahay ma sha Allah leeyahay sax aada u qanacsana barnaamijka ay soo jeedisay sax aad iyo aad barnaamijka inaa sii wadaa si jeclaa lahay sax waxa waaye ma sha Allah wax aan wali alla arkin waaye horta waad ogtahay barnaamijka inaan bulshada Soomaaliyeed u bandhigno oo gabdhaha Soomaaliyeed laga soo xusho 10 kamid ah inay yihiin 10ka ugu qurxoon ee dalka Soomaaliya waqti badan ay gelinay juhdi badan ay gelinay codeyntii bulshada Soomaaliyeed oo ka soo baxday ay san listigiisaan ku soo baxay anagana sida ku soo baxay ayaan soo gudbinay marka dadkaygiyo waxaan idin leeyahay codeynta oo idinku codeyseen sideeda ku soo bandhignay oo bulshada ula wadaagi doona insha Allah muuqaalka xiga wuxuu noo noqon doonaa codeynta ragga ugu isteelka wanaagsan YouTube-ka waa top 10 kamid ah ayaan dooran doonaa insha Allah ta'ala sida iyo nabadgelyo fadlan haddii aad ku usubtahay channelka subscribe saar like saar siin share gareey isla socod wanaagsan